ciidamada booliiska dalka Kenya ayaa ku raad jooga ilaa 5 qofood kuwaasi oo lala xiriiriyay dhacdadii lagu waxyeeleeyay gabadha lagu magacaabo Najma DDSI taasi oo dhawaanahanba social media si xoogan ugu faafiisay video laga soo duubay iyada iyo sidoo kale ayaan dhalad oo dagaalayo isla markaana ayaan dhalad ay aad u jirdilayso Najma DDSI wejigeedana ay aad u garaafaysay. haddaba laamaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa sheegay in ilaa imika ay gacanta kusoo dhigeen xabsigan u taxaabeen hal eedeysane kaasi oo la rumaysan yahay inuu qayb ka ahaa kooxdii ku sugneed gudaha dukaanka ama xarunta lagu waxyeeleynayay Najma DDSI deetana la filayo in lasoo taago maxkamad sidoo kalena uu gacan ka geysto in booliiska uu ka caawiyo in uu gudbiyo ama la wadaago xogta dadka kale oo ay ugu horeyso ayaan dhalad oo ilaa imika aan loogeen halka ay jaani cirib ay dhigtay oo ilaa imika booliisku ay rumaysan yihiin inay isaga baxsadeen magaala madaxda dalka Kenya ee Nairobi. Najma DDSI ayaa warbaahinta si aad u qabsatay saacadihii aynu kasoo gudubnay waxaana lagu dabiibayay isbitaal ku yaala magaalada Nairobi xaafadda Eastleigh. warbaahinta maxalliga ee dalka Kenya ayaa baahiyay muuqaal Najma oo laga wareysanayo xaaladeeda caafimaad. waxa ay sheegtay in xifaaltan dhanka ganacsiga uu u dhaxeeyay iyada iyo sidoo kale ayaan dhalad sidoo kalena uu jiray hinaasa dhanka customerka maadaama ay sheegtay in ay ka garab furatay xarun ganacsi oo ka agdhaweed xarunta iyadoo ay ku lahayd ganacsigeeda ayaan dhalad taasi oo keentay in ay khilaaf dhexdooda uu yimaado isla markaana ugu dambeyn khilaafkaasi uu isu bedelo gacan ka hadal. booliisku waxay sheegeen inay xabsiga u taxaabeen wiilkii fiidiyogaasi duubaya kaasi oo lagu eedeynaya in uusan dhexdhexaadin ama uu qeyb weyn ka qaadan in ay joojiyaan gabdhahaasi diriraya deetana la joojiyo dhibaatadii loo geystay Najma DDSI. booliiska ayaa dhinaca kale waxa ay ka warbixiyeen xaaladda caafimaad ee gabadhaasi oo iyaduna baaritaan lagu sameeyay computer laga saaray xagga markaasi wejiga qaybta maskaxda iyo sidoo kale feeraha oo scan lagu sameeyay. booliisku baaritaanka caafimaad ee dhaqaatiirtu ay soo saareen waxay sheegeen in aysan wax markaasi dhibaato ah soo gaarin marka laga reebo garaafa xagga wejiga inta kalena ay badi qabto oo ay ka badbaadiyay khatar. haddaba budka ay sidatay ayaan dhalad oo ay ku garaacaysay marka ay dagaalayeen iyada iyo Najma oo u muuqatay Najma ay gebi ahaanba markaasi tabartii ay ka dhamaatay intii ay dagaalamayeen oo iyadu si aad loogu beegsaday si bareerana ay isku waxyeeleeyeen. inagu ma doonayno inaan u kala xano laakiin waxyaabihii aynu ka arkaynay muuqaalka baraha bulshada aadka u qabsaday waxa uu ahaa arrin aad u falxun sidoo kalena TikTok-ga aad loogu faafinaya fiidiyogan hablaha Soomaaliyeed ee aad isu dagaalayo isuna waxyeeleynayo. booliiska ayaa dhinaca kale waxa ay ka warbixiyeen in ilaa imika geeska magaalada ay geeyeen baarayaal si ay gacanta ugu soo dhigaan eedeysanayaasha kale oo ay ugu horeyso ayaan dhalad. kiiskan ayaad moodaa in imika intiisa badan ay la wareegeen ama gacanta u galay ciidamada dambi baarista dalka Kenya ee loo soo gaabiyay DSI waa DCI raliga hadda Directorate of Criminal Investigation. booliiska ayaa dhinaca kale waxa ay ka warbixinayeen dhacdadan oo soo ifbaxday habeennimadii Axadda kadib markii fiidiyogan si aad baraha bulshada u qabsaday waxaana ay Najma oo ka warbixinaysay xaaladeeda caafimaad ay sheegtay in inta badan iyadu ay tahay qof nabdoon oo xasiloon hase yeeshee haddana arrintaasi ay ku tilmaamayso duulaan inkastoo uu jiray khilaaf hoose u dhaxeeya iyada iyo sidoo kale ayaan dhalad. ha yeeshee haddana waxa ay sheegtay in mar qura lagu beegsaday xarunteeda ganacsi deetana waxyeelo loogu geystay. marar badan ayay dhacdaa Soomaalida meel walba oo ay ku nool yihiin khilaafka xagga ganacsiga oo muddooyinka ugu dambeeyay aad u sii kordhayay tartanka dhinaca ganacsiga xarumaha ganacsi ee waxyaabaha isku midka ah lagu iibiyo oo dhibaato ay ka imaanayso muddooyinka ugu dambeeyay iyo sidoo kale ganacsiyada isu eg shabaha
oo xilliyada qaar iska garab furo oo ka dhasho cadowtinimo, kala qaybsanaan iyo nacayb labada dhinacba. Ha yeeshee haddana qof walba alla subxaanahu watacaala waxa uu qoray ayuu helayaa oo uu guranayaa. ma jirto cid kale bariiskeeda qaadanaysa. keliya qofka waxa uu alla u qoray qofka nasiibkiisa iyo calafkiisa unbuu cunayaa. ha yeeshee haddana marka la eego social mediaha sida aaladda tiktok oo kale, oo muddooyinka ugu dambeeya aad moodo in hablaha soomaaliyeed ee aada u isticmaalo, in dhexdoodu diriirtoodu ay aada u qabsanaysay baraha kala gedsan ee bulshada. si hablaha waa dhif iyo naadir inaynu aragno wiilal soomaaliyeed oo iyagu iswaxyeeleynayo ama isu haysto arrimo kala duwan. hablaha soomaaliyeed ayaa ha joogeen muqdisho, ha joogeen magaalada nairobi ee dalka kenya, waxay ahaayeen kuwo iyagu inta badan arrintan ay si gaara u taabanaysay kuna soo noqnoqonaysay. waxaan rajeynaynaa bulshada halkaasi ku nool, culammada, qaar ka mid a dadka indheergaradka ah in ay ka qayb qaataan wacyigelinta ummadda soomaaliyeed iyo sidii ay ku joojin lahayeen falalka noocan oo kale ah ee dhanka ammaanka qalqal gelinaya qofka nafsadiisa, dhibaateynta shacabka, waxyaabaha aanu quruxda badnayn ee laga wanaagsan yahay in la sameeyo. si kastaba ha noqotee, haddana arrintan oo ahayd mid markaasi dhinacyo badan aada dadku ay uga eegayeen siyaabaha arrintan ay ku timid, fideogan lasoo daawacay, dadkii halkaasi ku sugnaa intooda badanna la sheegaya inaysan dheg jalaq u siinin una dirnixin inantaasi aadka loo waxyeeleynayo, oo qaarkood ay u muuqatay in ay raalli uga ahayeen in ayandhalad ay ka cadgoosato najma DDSI. waana waxyaabaha baraha bulshada aadka ugu badanaya muddooyinka ugu dambeeya. hablaheena soomaaliyeed waa walaalahayn, waa gabdho markaasi bulshada soomaaliyeed ka tirsan, loona baahan yahay in kalgacayl, saaxiibtinimo, walaalnimo in ay ku wada noolaadaan, kuna ceeshaan, ayna meel qura markaasi uga soo tagaan xurgufta dhexdooda taalo, haddii ay noqon lahayd xagga ganacsiga, xagga saaxiibtinimada iyo arrimaha kale ee qoyska oo ay soo hayaan xilliyada qaar. waad mahadsantihiin. muuqaalkayga inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaa idiin soo saaray oo idinla socodsiinaya anigoo ah barta Toos Media, ayaad iga dhehanaysaan. subscribe-ta igala baqaylina, like-gareeya muuqaalkan, la wadaaga asxaabtiina. waxaanu idin rajeynaynaa in muuqaalkiisa xiga intaynu dib dambe hawada ugu wada kulmayno in aanu markaasi halkaasi isu nooca salaameyn doono. mar kale ayaynu idinku codsanaynaa in aad subscribe inoo saartaan channelkan. waxaynu doonaynaa inaynu aada u hanano dad yow tiro badan, oo aan rajeynayno in waxyaabo badan oo macluumaadyada kala gedsan arrimaha bulshada si toosa u taabanaya aynu la wadaagno.